جزاك الله خيرا. سؤاشينا بقولي تضبات. السلام عليكم شيخ. naag weli la'aan aan ismehersanay miyay meher igu leedahay maadaama ay culimmadu ka dhawaajiyeen in nikaaxasi uusan ansaxaynin? ninkani intuu intifaacsaday buu meherkii ka dooday intuu farjigeedii isticmaalay oo uu intifaacsaday buu haddana la rabaa inuu bilaash ku tago. marka hor sax maaha. masaladaasi xadiid nasaa ku soo arooray. xadiidkana waa xadiid caaisha. nabigeennu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuha baatil fain dakhala biha falaha almahru bima istaxalla min farjiha. wuxuu nebigu sal lay waslam haweenaydii guursata haweenay kasta oo guursata weli la'aan guurkeeda waxba kama jiro nebi maxamed baa sidaa yidhi sal lay waslam. hadduu guurka noocaasin waxba ka jirin ugu galmoodo meherkeedii way ku leedahay. xaggay kaga yeelatay? guurku maba asixine li'anna xubinkeedii buu xalaashaday. soo saas maa xubinkeedii maadaama aad xalaashatood ku shahwo gudatay adoo u haysta inay xalaal kuu tahay, maadaama aad manfacadaa heshay meherkeedii bay leedahay. haddii intaad meheriso meher baadila meheriso intaadan u galmoonin aad ogaatay inuu meherkii baadil yahay, hadde markaasi wax weeyaan meher ma jiro, guurna ma jiro, soo ma. laakiin maadaama aad yani waxoogaa ka heshay aduguna waxoogaaga bixi. warku waa iswadaayo. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aasheenna boqolisteedaad sheekh. xadiidkaa waxaa wariyey axmed, abu daawuud iyo tirmidi ibn maajah, waana xadiis sheekh albani u leh waa xadiis saxiix. nacam.